بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله. أما بعد marka hore ilaahay baa mahadle waxaan salaamayaa gobolka Awdal dadweynihiisa raggiisa dumarkiisa dhalinyartiisa mutacallimiintiisa jaamacadaha nimanka ka soo baxay waxaan kaloo salaamayaa wariyeyaasha iyo horjooga oo iyaguna hawl badan dalkan u soo qabtay nuxurka aanu nimidnay meeshan waxa weeyaan xildhibaanadii gobolka Awdal anu gobolka Awdal baan ka soo baxoon doorashada ka galay Boorama wax badan baan ka helay marka dad baa ka dida masiibada dhacday laba reer oo Soomaaliyeed hadday maanta wada qadeeyaan ay wada fadhiistaan ka saddexaad baa ka xanaaqaya waa problem yahay Soomaali isiga buursaa joogo wada fadhiya ayay dad badani ka didayaan waxaan inii sheegaynaa qolada ka didaysay weligeey waan wada joogaynaa balaayada nagu dhex jirta sida noo dhex wareegaysay idinkoon bay ahayd laakiin waan fahamnay hadda kadib waan fahamnay waxa weeye marka aan isiga buursigu dhan waxaan idhaa way ka nasiib daran yihiin marka ilaahay jaarka yagii ka dhigay Sacad Muuse markuu ilaahay ka dhigay jaarka yagii waan ayaan daranna waxaan idhaahdaa ma digliya midifle ayaa malahaynii dhaami lahaa digliya midifle ayaa inii dhaami lahaa ayaan marmarisidhaa ragga lix goobood oo yaryar maanta doonaya inay callaydh iyo gallaydh musabixi ka soo qaaday iyo Hargeysa oo lixdaa goobood ee yaryar aw ku beero dadkii lahaana leeydi diiwaan galinta xagga ka gala markay soo galeen dumar baa ku siday u socdeen diiwaan gelinta ku daalay ku haraaday ku dhiciyay waxa la yaab leh waad ogeydeen diiwaan gelintii gobolka Awdal ka bilaabantay markii ugu horeysay waa kuwii weeraray hadayta suldaankii habeen hore hadlayay suldaan sabayste waa magacan garanayn malaha waa Turkiya waxa ya magac ya waan garan waaye suldaan idil oo sheegtay suldaanka guud ee Sacad Muuse annagu suldaanka guud ee Sacad Muuse waxaan u naqaanaa suldaan Xasan oo abka isir u ahaa kii Musabixi dawla dagaalamay ka yaree aanteenka aw ka daba keenay suldaan sabaystana suldaan maaha suldaanku hadduu qori qaato dhaqanka Soomaalida uu ka baxsan yahay waa kii maxkamadda la taag hadday waliba maxkamadda ku dhacdo la xukumana suldaanba ma haddana wuxuu yidhi waddankoo dhan waan wada leeyahay ilaa laanta Awdaan leeyahay sabaystow bin Axmed kuma wuxuu shaqeeyaa waagaad adu jaban tahay waa laysoo eriyaday waa laysoo waxeeyay allahay waa lixdan degmo ee yaryar lixda goobood maxay nigu kadeeday ilaa iyo Musabixi musharax madaxweyne doonayay ayaa dul dhigaya xooga Sacad Muuse magaalada wada joogay ayaa xooga dul dhigay waliba reerka Nuux Ismaaciil la yidhaa iyo xooga saaray maxaa Nuux Ismaaciil walaalaan ahayn dad wada dhashaan ahayn maxaa waxna dhex yaala ma jiro meesha maxaad ogtiin gaalada waad u dhuundalooshiine ma macdan baa ku jirtay dahab ka badan diiwaan geline maxaa ku jira meesha noo sheega wayna wada deeqi kartaa haday dahab iyo macdan iyo deeman ku jiree noo sheega waxaan inii sheegayaa sabaystow binu Axmed annagu ma nihin annagu waxaan nahay madaxweyne direed madoobadir baan nahay madaxweyne dir waa gurguriya Kishaha madaluug dir waa Gadabuursi maxadir waa Isaaqa marka annagu waxaan nahay madoobadir
منهم بن أحمد واتي سياسة دي يهلقن كي أدوست إنك سوق جلسي إيصونا وضد إسكا معانو وان إسكا قادن أروي جباني أرمان تانوغو هيل النانيري هيل دمبي مجرو هيل دمبي مجرو مجرتو إن ليس احترامها دكتي هدي خسارة كفايد نوكو خسارنا هلقن كي SNM اللي شيء معها SNM أردن قولدا لحظة قوبود لقى كريلايان سيبا كسي خسار وحان أباقيا دادك الرئيس ومالي اللان شركة عن قبصني وكيك الحجز كشلا يوقبصني وحيابي كمجرد سومالي اللان شركة ويقبصن كرتا مدى كالي غيرنا الرير كما حوكرونو مركي بلايا دلاعضو يا والله اسبلي لقيسان كوا موديسو إنينا وحبا هين unbaa xaafadaha kuugu soo galayo dadkana ka hadlayn aqal kasta waa lagu ooyi haday balaaya dhacdo aqal kasta walla waa lagu ooyi midda kale waxaan la yaabaa ree awdal waxay u haystaan Somaliland dawlad Somaliland ayaan inagu haysana nin khabiir oo sheekayga Sheekh Ahmed Yaasiin iyo rag kale waa dhaweynidi war nimankuba maamul goboleed Somaliland bay isku haystaan inagiina dawlad Somaliland ayaanu haysana haday dawlad Somaliland yihiin cadaaladday sameyn lahaayeen dadkay xaq soori lahaayeen dawlad yihiin sidee maamulun bay u dhaqmaan maamul goboleed inta wanaagsan ee reer Somaliland kuma jirto laakiin waxa la inaga sugayaa garxaji sawir lixda goobood maxaad ku haysatiin inaad tiraahdiin aaway arabkii xaq u dirirka aha aaway ciida galii saldanada ciida gal isaaqo dhan hayay war ma had balaayo hor la qabtay leedahay daba la qabta mal ciidamadii baa la geeyay waa la soo qaxiyay dadka yagii ciise gada bursi way soo qaxeen iyaguna way diyaar garoobeen itaal meel oo dhigaba haddaad adu bam haysato oo kaara haysato oo cadaalad daraad ku dagaalamayso dhagaxa ayaa dilay waa yoom albadr midda kale waxaan la yaabay waxaan maqlaa ciidamada Israa'iil ayaa degaamin ka wada dhulka Falastiin war goormaad inkuna Israa'iil noqoteen Muuse iyo qaydkiyo annaguna Falastiin aan noqonnay goormaan Falastiin noqonnay dad reer Somaliland oo wada degan ayaan isku haysanay oo sharaf iyo cisi gacal iyo xigaalo wadaha idnaga kii xigtay ma jirto laakiin ilaana musnaanta xalay wuxuu yiri Musabbixi xagga waxa lagu yaqaanay hanjabad lagu mooqoon gobolka Awdal duca lagu yaqaanay ee inoo soo duceeyay adiguna madaafiic baadna marin annaguna ma ku soo ducayna waliba ducaan kuugu darna aqligii madaxweyne doonayay maaha kaas maaha garashadii hagaagsanay ee dadka Somaliland dadka Somaliland ku wada tashadeen ay walaal ku ahaayeen ma waxaan ku gabagabaynayaa Sheekh Ahmed Yaasiin baa iga dambeeyo waxaan ku soo gabagabaynayaa haddii kumishano xeerkii diiwaangelinta u dhignaa ad raaci weyde iyo distoorka iyo waxa yaala shuruucda Somaliland u yaal waxaad ku dambayn komishankii Kenya ee la kala googo'ay haddii dawladda iyo xisbiga kulmiye ee mutadarrifka ah ee balaayo horseedka ah ee muusana hogaamiyaha u yahay ay waxa ku dhaqmaan way kala tagi nin walba xaafadiisu tagi ninkii deel ku lulanaya kii gaaja ku disha xaafadiisa iyo kii daraga ku dilay waxaad u socotiin waan ognahay bad baad u socotiin walkii Cabdulqaadir Xildhibaanke bad sayla iyo luqaya iyo gidiya inaga xiga taberberaad iyo inaga xiga waxaad doonaysiin dekad inaad samaysatiin waagii baan ku idhi qoladan Samaroon ee reebtigaya war luqayaan dhisayna war nimankii walaa inagu xasuusinina baray oranayaan awoodan ku dhisna China manihin iyaguna ma dhisi karaan ciise gada buursi hadaan isku degnana ma dhisi karnee hay nagu xasuusinina baray oranayaan luqayay dhisanayaan annaguna ee sheekhan ka dhisan waxaan la yaabay naag heesta
ayay naagta wariyaheenni macasabir qaado intay u dul dhigtay biijka el sheekh iyay tiri ka hees iyaduna way waraysanaysaa macno badan bay bixinaysaa wariyana weey waxay tiri halkaa ka dul hees annagaa leh marka waxaan leeyahay imika waxa dhul laga qabsaday el sheekh waa diyaabi duni idil oo la haystay ayaa rugmatay suuriya maanad ogayn ciraaq maanad ogayn liibiya maanad arkayn waar indhahaaga maxanjaa saaran waar sidii aan ahayn iyo noloshii aan ahayn iyo wanaaggii maxaa kuu diiday waxaan ku soo gebagabaynayaa ilaahay ayni soo hadeeyo xaqa hayni tus annaguse ummadda reer somalilan waxaan leeyahay waa runta sheega waa 6 goobood waxaan ku kala tegna maahayne waa runta isku sheega wasalaamu calaykum